kusoo dhow halkan waa ka sheekay sida caadiga markaasaan isku nimaadno waxaan iska dabageynaa waxa lahu cusub aan jecelnay inaan umada gaarsiino fadlan please share subscribe kusoo dhow dadkan aqoon magacayga waxa la yiraahdaa barbara fadlan gaarsi saaxiibada share subscribe aad iyo aad baa mahadsantahay booqashadan soo boqotay maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin runtii qofka hadduu ku dhaqmo aad ay u anfacayso aad bay ku anfacaysaa arrintaasna waxa weeye naftaada ha khiyaamin naftaada hawa beena naftaada ha khiyaamin don't cheat yourself waxaan saa u leeyahayna waxa weeye hadda tusaale ahaan oo kale haddii waalid ku waraysto qof dantaadiyo sharaftaada rabaa ku waraysto aad magaranaysaa qofkaasina wax kuu qaban lahaa ama wax ku kabi lahaa ama hadday wax kaa khaldan yihiin uu magaranaysaa kaa waanin lahaa ka hor haddaad ugu sheekaysid wuxuu rabay uu kula rabay inaad ugu sheekaysid inaad samaynaysid ka hor kamaan ka tago saani sameeyo maasha allah maanta oo dhan masaajidkaan ku maqnaa aabbo ama hooyo maanta oo dhan wallaahi subac baan ku jiray let's say maanta homework baan ku maqnaa ma garanaysaa casharkii maanta ma ka soo baxday imtixaankaaga siduu ahaa I did good imtixaankayga aad baan wax ugu fiicnaa waxaasoo dhan oo wanaaga oo lagula reeyo dhan aad og tahay oo beenta ka sheegaysa qofka u sheegaysa inaad magaranaysaa waxaa samaysay ama aad magaranaysaa inaad waxaa samaysay aad sheeganayso dhan aad u sheegaysid inaad samaysay su'aal hadda kor waxa dhacday wiil baa wuxuu ii sheegay shaqadu ka shaqeeyo inay qof u baahan yihiin qof inay u baahan yihiin qof dad u baahan yihiin hadday helaanna in ma garanaysaa lacag fiican uu qofku qaadanayo wiigii keliya wuxuu qaadanayaa qofku lacag wanaagsan buu qaadanayaa wiigii bishii ilaa 4,500 ilaa 4,500 ilaa 6,000 meelahaas buu samaynayaa waa qodad ma garanaysaa shaqooyin waa contract oo beelaayo qof ma garanaysaa kombiyuutaradii waxaas aad ugu fiican uu samayn kara wey programming oo dee nin kombiyuutarka dhinaca intuu ka gala marka wiil aan aqaanay baan u imi markaasaan ku salaamu calaykum waa bal war ma fiican tahay waxaa barooqayla oo nin waxaan ku weydiinayaa ma xasuusataa waxaan kuu sheegayaa ma xasuusataa shaqaad ka shaqayn jirtay shaqadaa ka shaqayn jirtay saxigii kuu marsa markaasu wuxuu yidhi niyow maasha allah shaqo fiican baan hayay oo niyow oo taadu waxaad ii sheegtay maalinkii ilaa bishii qaadatid ilaa qofka haddaa xoogaas yar isfahantaan wuxuu kaa dabageynayaa intuu sameeyo iyo shaqadaada siday tahay iyo waxyoogaa dhiita waxaad gelaysaan arrin hoosaad gelaysaan moogti oo aad iska dabageynaysaan moogti oo shaad sii gelaysaan moogti marka ninka odag ahaa arrimihii baan aan ka wada hadalnay marka waxaan ku yidhi waa bal warano kaasi wuxuu yidhi shaqada iga warano marka shaqo fiican baan ku hayaayo maasha allah intaanan shaqadiiba aan bilaabin hawshii bilaabin war bal shaqadii ka hor xagee kuu maraysaa shaqo fiican baan hayo oo xoogaa taad ka shaqaynaysaa ii sheegtay xoogaa ka lacag fiican
excuse me lahada marka waxaan ku yidhi war laga warran baa idhi xaaladda ka waran sheekadii markaa shaqo fiican baan hayaa taadii xoogaa ka yar lacag badan oo wiil ii soo sheegay aan halkaa marinaya sheekada wiga qaatay shaqadii maasha allah credit fiican baa kusii helay shaqadii magaranaysaa waxay ii maraysaa bishii wallahi lacag fiican baa qaatay intii halfkeed baa igu darsantay maasha allah maasha allah xariif kala ag fadhiya marka aan ogahay isaguna shaqada qaban karo dadka waxaan nahay dadka marka magaalaas kugu nimaadno xoogaa raggaa shishe ka soo ku jiray marka wuxuu sameeyey waxaan ku yidhi bal saas weeye saasa xaajada marsakaas wuxuu yidhi anigo dhegdheg kii ag fadhiyaa wuxuu sameeyey argahayrow ii sheeg shaqadaas buu yidhi maxay tahay waa tan informationkeeda dhegdheg ninka kaloo ii soo sheegayna waa ninaan isku fiican nahay oo howlahaas ku shaqeeya wuu soo baxay shaqadii waa aaday ninkii kii kaloo halkaana 2 wiil kadib isoo wacay xagee maanta haye bas ku keen firaaqan u waayey maalinka kale firaaqan u waayey waxaan ku aqaanay inuu naftiisa xoogaa geer yar baa ku jira waan ku dareemi jira howlaha waan ku dareemi jira laakiin shaydaanka moogta waa inaad waxyaabooyin badan niica dadka marka kaaga sheega aad dadkan isku dhowdiino lagama dhegeysto laakiin waxyaa ilaahay wax ku aragtid mooye muxuu ka saa ka wadaa saa muxuu yidhahdaa buu shaydaanku kugu dhahayaa moogta imtixaan weeye bilaayad marka waxaan sameeyey waxaan ku yidhi waa balniyow khayr allah ku siiyo marka ninka odagaa arrimahan ku aqaanay baa jirtay hadda ka hor aan ka dareemay marka ilaan qofka markaad isla nooshiin oo sheekaysataan moogtahay ninka qofka biniaadanka ilaahay wuxuu haybadda u siiyo u garanaysaa waxyaabooyinka naftiisa qalooca ah oo qofka wax kasta waa waxaad adigu isbartid moogtay haddaad wax jid qaloocan ku socotid oo aad inaad isla saxanta u qabtid waxa weeye ilaahay oo kaa ku tusa ama life experience-ga iyo noloshu inay ku barto dharbaaxo adduunka kugu dhufto waxaa leeyahay 2 macallin midna waa naxaa midna ma naxo waalid macallimiinta iskuulka macallinka dugsiga quraanka macallimiinta kuwaasoo hadduu qof siday u badan yihiin way kaa naxayaan saan samee saan waxay ku siinayaan wax yaqaanaan ay ku shaqaysanayaan jidka loo maray kuu sheegayaan laakiin haddii ma garanaysaay aad ilaahay kuu roonaadee aad dhegeysatidna dee waa adiga ku facaysa haddaad dhegeysan weydidna kolley macalinkaan la hayna waa nolosha waa adduunkan iyo ummadda hawlahan kale oo dhan aad samaynaysid hadday maal aad leedahay maalkaaga aad dhaqaalo lahayn haddii ma garanaysaa dantaada garanaynin naftaada khiyaamaysid marka adig ku soo ridanaysaa adduun baa ku baraya hadda tusaale ahaan oo kale gaari hadda haysatid aadan gaarigaaga ma garanaysaa oolyadiisa biyihiisa taayiradiisa wixiisa aadan dhaqaalaysanin oodan saa fiirin taayirku inuu kuu fiican yahay taayirku inuu kaa dhammaaday kan lugteebaa dheer lugteebaa gaaban aadan fiirinaynin maaragtay maalinka dambe gaarigaadoo socdo kuu qiiqayaa wuu kaa gubanaya ama wuuba jabayaaba matoorka dhan baaba injinka dhan baaba isku dhex daadanaya ooyadii biyuhu isku daraya dhaqaale u baahan yahay haddaad dhaqaalihii gaariga u baahnaa aadan marin dee adigna kuma dhaqaalanayo naftaadana marka naftaada haddaadan khiyaamin naftaada haddaadan khiyaamin oo daacaddu noqotid nafta si daacadnimaan oo nafta ola noolaatid waxaad u noolaanaysaa nolol degan ummadda ilaahayna aad afkaaga iyo adinkaaga ka reebatid si sharaf la u noolaanaysaa alaa kulli xaal ninka odaga waan is aragnay arrintii buu iiga sheegay shaqadii inuu doonayaan ka dareemay heart to heart waxaan ku yidhi 1-on-1 conversation baa la yeeshay ninka odaga waan isku caddaynay siday taas kugu caddaynay marka
mar alla markuu halkan hadalka bilaabay oo sheeko ka dhigeysta waxaa niyo dhigeysa xidhi ku jeclahay waa nin wanaagsan qalbi wanaagsan baa tahay laakiin hal cilada qabtaa baa xidhi halkaa cilada haddaa iska daysid noloshaada inta yaroo ka khaldan oo isu dhaafisa salaadaada way fiicantay ilaahay masaajidaada ku taga jamaacada horaad ka mid tahay laakiin naftaada uma roonid isbuufintu ma wanaagsana haddaa isbuufisid waxa weeye adun baa isbuufiyey haddaad isbuufinta haddaa isbuufisid adun baa isbuufiyey taagsonow haddaa wax gaara waxa lagu ogyahay ama aad gacanta ku haysatid baa dadku ayaa la arkaa laakiin isbuufin dadka ku jecel oo dhan ama waalid ama ehel ama fareen qalbigaad ka jebinaysaa sababto qalloocaaga waa loo jeedaa way fahantay laakiin anugu dee waan kugu caddaynaya walaal waxaan ku yidhi inay sidata wax ka bedel arrimihii dhan waxaan naftaada daacado noqo yaa isbuufin meel kuma gaarisid ilaahay cilmi buu ku siiyey raganimo aad leeda kumaad keensanin cilmi baa ilaahay ku siiyey cilmigan iyo wax alla maalkan waxaan haysano xaasaska haysano awlaadaha waxyaabooyinkan aad haysatid oo dhan yaa wallaahi raganimo aad leeda kumaad keensan ilaa biidnillah ilaahay mooye wallaahi baadan ilaahay baa ku siistay don't think waxyaabooyin badan oo samaynayno ha u malaynin ragnimo ama waxaan dadka dheernahay ama ka reer fiicannahay ama ka ma jirto ilaahay baa ku siistay ilaahay intaa ku siistana niyahow yaa ha kaa muuqato soo garta ma ilaahay ku anfaco ilaahay nagu anfaco isbuufintu ma wanaagsana haddaa isbuufisid waxa weeye adun baa isbuufiyey